ciidamada booliska degmada Cadaado ayaa gacanta ku soo dhigay haweeney ilmo yar oo dhashay ku tuurtay nawaaxiga meel qabuura oo ku yaala gudaha magaalada Cadaado. Ilmahan oo sida la tilmaamay habeenkii xalay ahaa haweeneydan ay dhashay ayaa saaka aroortii hore dad shacab ay ku arkeen nawaaxiga qabuuraha waxaana ay ku soo wargeliyeen ciidamada booliska. Ciidamada booliska oo soo qaaday ilmaha yar ayaa dabagal ku sameeyay hooyada dhashay ilmahaasi waxaana ciidamada u suurta gashay inay gacanta ku soo dhigaan. Waxa ciidamada booliska sidoo kale ay soo xireen qof dumar ah oo ay tilmaameen inay qoftii ay la joogtay haweeneyda ilmaheeda tuurtay waxaana ilmaha yar iyo hooyada dhashaba lagu soo bandhigay saldhigga booliska degmada Cadaado. Taliye ku-xigeenka saldhigga booliska degmada Cadaado Dhame Cumar Macalin Cali ayaa warbaahinta ugu warbixiyay sida ay ku heleen ilmaha yar iyo qaabka ay ugu suurta gasheen gacanta ku soo dhigaan hooyada dhashay. Saakay subaxnimadii waxa soo wargeliyay dadweynaha degan magaalada Cadaado qaar ka mid ah waxay ii sheegeen ilmo yar oo meel qabuuro lagu tuuray agsood ah nool oo nafta ku jirto isla markii waan dhaqaaqay waxaan u soo binay gabdho caawiya oo cunuga caana siiya oo sii badbaadiya inta aan cidii ka dambeysay iyo hawshooda aan gacanta ku soo dhigayno. Waxaan ku guuleysanay cidii ka dambeysay gabadhii dhashay iyo guriga ay joogtay iyo saacadda ay dhashay iyo goobtii falku ka dhacay iyo qaabkii u dhacay iyo saacadii u dhacay dhammaantood gacantaan ku soo dhignay. Gurigii ay ku dhashay iyo gabadhii iska laheed oo caawinaysay oo maaragtay arrintaas iyo kiiskaas wax ku ogeed oo madaxda u aheed dhammaantood iyo ilmihii yarkaaba waa kuwa hadda maxkamadda xafiiska garsoorka cadaaladda ku dhex sugan oo u jeedaan. gudoomiyaha maxkamadda degmada Cadaado Sheekh Cabdirashiid oo isaguna goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ilmaha yar loo xil saaray dad gooniya wuxuuna sheegay in haweeneyda sharciga la waafajin doono. caruurkaas yarka daryeel ma haysto wax waalida ma lahan kii waalid ugu dhawaa waa midka tuuray asagoo tabaryaradiidaas ay jirto haddana mid lagu haleyn karo maahan sida aad arkaysaan waxaan u dhiibnay gabdhaha booliska ah ayaan u dhiibnay oo aan niri ilmahaas ma ogsoontahay daryeela kuwa tabar u hayana maahan dhinaca dhaqaalaha dad tabar u hale maahan oo awood u leh ama caanahooda iibin kara ayagaaba waxay ku shaqeeyaan ma ogsoon tahay si tabaruc ah asagana la daryeelo hooyadana wixii ay mudato ciqaaba waa la marinayaa maxkamadda iyo waxa marinaya booliska ilaa hadduu qadaro ruuxeeduna in lagu daryeelo ayay rabtaa oo ilmuhu nuujin bay rabaan in la kala cayriyana ma ahan lagumana aamini karayo. Sharmaarke Maxamed Maxamuud TV-ga caalamiga Hon Cable magaalada Cadaado.